وهكاك ambassador kusoo dhawaad goobjoog TV marka xigta su'aasha ugu horeysa aan ku weydiiyo waxay tahay saacadan la joogo dhawaan waxa ka soo laabtay Turkiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Ali Khayre bal waxaad hadda warbixin kooban naga siisaa meesha uu marayo xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya u dhaxeeya. marka hore waxaan u mahad celinayaa TV-ga goobjoog xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga waxa uu ahaa mid 6 sano ee la soo dhaafay aad u wanaagsan maantana waxa uu taagan yahay meel aad u sareysa xiriirkeenu kuma koobna oo kaliya mid siyaasadeed waxa jira kuwa kale oo wajiyo badan sida mid dhaqan iyo mid ganacsi iyadoo booqashadii ra'iisul wasaare Khayre ay sii xogeysay xiriirka ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya waxa uu booqashadiisa Turkiga kula kulmay madax sare oo Turki ah kuwaas oo ugu horeeyay madaxweynaha Turkiga wasiirka arrimaha dibadda wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha guud ee ciidamada xoogga dalka Turkiga kulamadaasna waxa xoogga lagu saaray sidii loo sii horumarin lahaa xiriirka labada dal mudan ambassador ra'iisul Khayre waxa uu sheegay in xiriirkii ka dhaxeeyay dalka Turkiga iyo Soomaaliya la sii ballaariyay oo xiriirku noqday markan mid ka qoto dheer intii hore taasi maxay macnaheedu yahay xiriirka waa xiriir nooc ah Türkiye Somali halkının hep yanında olmuştur. Somali halkı ne zaman bir zorlukla dawladda Turkigu markasta waxay garab taagnay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed Soomaaliyana waa inoo muhiim in dhinac kasta aan ka taageerno maadaama Soomaaliya ay la tacaalayso argagixisada dhinaca amniga in horumar laga sameeyo waa inoo muhiim sida daraaddeed dawladda Turkigu waxa ay kor u qaadaysaa gargaarka ama kaalmada ay Soomaaliya siiso kaliya xiriirka amni in la xoojiyo kuma koobna ee waxa jira mid dhaqaale oo aan ku rajo weynahay in laga miro dhaliyo inaga oo dhawaan rajo ka qabna in la dhiso gole ka kooban wasiirada labada dal oo noqon doona kuwa dhanka dhaqaalaha ka shaqeeya waxaana aad ugu rajo weynahay in aan qorshahaas u sii ballaarino mid ka turjumaya istiraatiijiyadda wax wada qabsi oo guuleysta waa tahay hadda waa soo hadal qaaday ka hadalka arinta ku saabsan waxa lagu yeeray argagixisada qodobadii aad ka jeedisay asaaskii Jamhuuriyadda Turkiga oo ay goobjoog ahaayeen mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaad ka sheegtay in aad dawladda Soomaaliya ka caawinaysaan dhanka militariga gaar ahaan la dagaalanka waxa lagu yeeray argagixisada caawinada noocaas Soomaaliya waxaa jira wadamo badan oo caawiya hadii halay midowga reer Yurub Mareykanka wadamada Afrikaana caawinaantiina Turkiga maxay kaga duunaa doontaa caawimadaha kale ay bixiyaan wadamada kale Türkiye'nin Somali'deki faaliyetleri her zaman markasta kaalmada aan Soomaaliya siinayno waxa ay ka duwaneed kuwa dalalka kale ay siiyaan Soomaaliya gaar ayayna ka ahayd kaliya siin mayno kalluun ee waxaan baraynaa sida kalluunka loola soo baxo dhanka amniga ma ahan wax hadda bilowday tan iyo 2011kii ayaan ku guda jirnay sidii aan u caawin lahayn ciidamada ammaanka ee Soomaaliya taasna waxa daliil u ah xerada military ee aan dhawaan dalka ka hirgelinay taasoo lagu tababari doono saraakiil xigeenada iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo lafdhabar u noqon doona dib u yagleelidda ciidamada xoogga dalka xaruntan tababarka ee aan hadda furnay inta ogaalkayga ah waa tii ugu horeysay ee Soomaaliya laga furo in muddo ah oo lagu tababarayo saraakiisha Soomaaliyeed waa xarun aad muhiim u ah maadaama lagu tababarayo saraakiisha iyo saraakiil xigeenada markaan maalin dhaweed hadalka jeedinaya waxaan sheegay in aan argagixisada ka caawin doono Soomaaliya sidii argagixisada loola dagaalami lahaa taasna waa mid sax ah oo naga go'an وهاك مركا حردا ملتري أو تركيا وكفر الصومالية ما يمكن يدين يسوع كتابسن مقلتها هاي هذا وحاس سعودي ما هو حد عايف الأمن جديد كواه وراح ياك داعي ضد بنا مقدش كو جيري وذي قرح كلا قدم بيجي فالكاس أمني در هذا تركيا استوى أركيان مع بسجل النساء tabii ki hiçbir şekilde bizi korkutmuyor. Biz 2011 şartlarında o zaman maya nama baqdin gelinayaan qaraxyada dhacaya maxaa yeelay dalka waxaa nimi xilli iminka ka xun oo ahayd 2011kii madaxweynaheena oo xilligaas ra'iisul wasaare ahaa ayaa yimi Soomaaliya isaga iyo qoyskiisa iyadoo la wada ogsoon yahay xaaladdu sida ay waaga ahayd waa runta qaraxyada iyo ammaan darrada jirta waa xaqiiqda dalka ka jirta laakiin ujeedkeenu
waa in ay Soomaaliya ay cagaheeda isku taagto mar kale caadina ay ku soo noqdaan. Hadafkeenu waa ka Soomaaliya oo amni ah, in xiriir laga dhaxaysiiyo xarunta ciidan ee aan Muqdisho ka furnay iyo amni darrada waxaan u aragnaa arrin ay niyad xumo la socoto. Wahagaag 2011 Turkiga wuxuu ka mid ahaa wadamadii ugu horeeyay Soomaaliya soo gurmada hadduusan baahin wadanka ugu horeeyay Soomaaliya soo gurmada intaana waa joogtay Soomaaliya. waxaad moodaa Soomaaliya in wadamo badan ay daneynayaan oo marba ku xigta imaashiin kadib wadamo ay imaanayaan oo ay safaarada Soomaaliya ka furnayaan. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan dhawaan wuxuu sheegay markii qarax uu ka dhacay magaalada Muqdisho in adduunku ay tahay in Soomaaliya uu wajaho. Turkiga dadtiin ma idin muuqanaysaa in Soomaaliya ma idin muuqanaysaa Soomaaliya adduunka la dayacayo oo u qaban waxay u baahnayeen ama taageeradii ay ka rabeen? Waa runta wixii ka horeeyay 2011 adduunku waxa uu hilmaansanaa Soomaaliya. sanadka wixii ka dambeeyay waxaan aragnay in dunidu ay Soomaaliya hilmaamayso iyadoo wadamo iyo hay'ado caalami ah ay Soomaaliya xarumo ka furteen. laakiin su'aalo waxa laga keeni karaa ma qabteen wixii looga baahnaa. sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqaynaa caalamka in ay Soomaaliya taageeraan si ay uga baxdo dhibaatada ay maanta ku jirto. marka laga soo tago militarigaas iyo kaalmooyin kale la xiriira wadanka mashaariicda horumarineed ee dalka Turkiga Soomaaliya uu ka sameeyay waxaa kamid ah iskuulo iyo waxbarasho Soomaalida la siiyo, arrimaha caafimaadka, dhismooyin gaar ahaan wadooyinka oo dalka Turkiga uu Soomaaliya dhisay. waxaa jira dhismooyin dalka Turkiga uu hore u ballan qaaday oo 10,000 gaaray in Soomaaliya gargari doono. marka waxyaabaha ugu dhow ee hadda laga filan karo Turkiga oo horumarineed maxaa kamid ah? Soomaaliya kaliya kama taageerno arrinka ku saabsan gargaarka ee waxaan sidoo kale xoogga saarnaa barnaamijyada horumarineed kuwaas oo laga arki karo meel kasta. hadda waxaan rabnaa inaan waxqabadkaasi kordhino. waxyaabaha aan qabanayno waxaa kamid ah in aan meel ay ku shaqayso u dhisno hay'adda duulista hawada iyo in aan urur kamida ururada shaqaalaha u dhisnay xarun ay ku shaqeeyaan. magaalada Jowharna waxaan ka hirgelin doonaa mashruuc la xiriira waraabinta beeraha iyo sidii looga faa'iideysan lahaa biyaha webiga. waa mashruuc aad u ballaaran waxaan filaynaa inaan dhawaan ka hirgelin doono. Verimli geçti. 2011 markaad imaanayseen Soomaaliya طبعا aragtiyo badan ay ku jiray ama waxaad ka filayseen Soomaaliya. maanta oo la joogo 2017 sano oo dhowr sano ay ka soo wareegtay ma idin muuqdaan in hadafyadii Soomaaliya u timaadeen oo aad ku caawinaysa shacabka Soomaaliyeed inay idin muuqato inay mira dhashay bas waxaad leedihiin waxba ka dhiman sidaad rabteen xaalku ma aha? marxaladii ay Soomaaliya ku sugnayd sanadii 2011 iyo 2012 indhahayga ayaan ku arkay sida xaaladdu ahayd Soomaaliya. waxay ku tilaabsatay horumar weyn. waxaad arkaysaa in hadda dadku ay habeenkii dukaamaysanayaan oo ay socdaan qof kasta ahina meeshuu rabo aadayo. taas ayaana ah waxaana farxad gelinaya. waxaan isu aragnaa inaan gacan weyn ka geysanay oon ku faraxsannahay. waxaa yaala howlo badan oo u baahan in la qabto. wax kasta in sidii loogu talagalay loo qabto waxay u baahan tahay waqti iyo shaqo. Soomaaliya waxa ay leedahay kayd badan oo ay ka mid yihiin beeraha, xoolaha, kalluumaysiga iyo in ay Soomaaliya leedahay dad u badan dhalinyaro. inta aan soo tirinay waxay kaalin mugle ka qaadanayaan Soomaaliya sidii ay u horumari lahayd. tahay su'aasha ugu dambaysa rabinaan ku weydiiyo mudane ambassador waxay tahay marka qaar waxaan aragnaa khilaafyo u dhaxeeya Soomaalida dhexdeeda madaxda ha ahaado ama gobolada ha ahaadaan. marka fariinta ugu dambaysa aad rabto in dawladda Turkiga ay u dirto shacabka Soomaaliyeed ama madaxdooda maxay noqon kartaa? Somali'nin birlik ve bütünlüğü her şeyden daha önemlidir. Somali kültüründe uzlaşı ve sorunlara çözüm bulma geleneği vardır. wax walba waxa ugu muhiimsan wadajirka iyo midnimada. waxaad arkaysaa in Soomaalidu marka ay iskhilaafaan aysan dhihin khilaafku muxuu u dhacay oo inta meel ay isugu yimaadaan ay dhamaynayaan sida dhaqankooda ah. waa wax lagu farxo in dhammaantood ay maanta isla joogaan oo khilaafkooda ka wada hadlayaan iyadoo qori aan la isku wadan oo la wada hadlayo. waxaana ku guubaabinayaa in midnimadooda ay ku dadaalaan wax kastana lagu xalliyo isfaham.